marka filimka ee ku saabsaneed waxay ka imaanaysay saddex angal ay ka imaanaysay oo qoyska sheekada familka Roble iyo familka Deeriye iyo familka Duniye kuwaas oo sheekooyinkooda aysan ahayn sheekooyin isku mid ah qolabo meel ayay sheekadeeda micno kala ahayd haddii aan ku hormarno sheekada filimka oo qaybta Duniye iyo familkeeda sheekadoodu waxay ahayd sheeko in maxal aabihii familka oo ku tiirsanay uu hayay oo meesha ka baxayo ama uu geeriyoonayo ama gacan ka xaq daran ay dilayso maxaa yeelay xalqada toddobaad ee filimka waxa ku daawanay Duniye iyo aabaheed isla socdo oo aabaheed gabadhiisa wax u sheegayo kala dardaarmayo wax fiican ayaa qolo aan la aqoonin ayaa inay meel ka soo baxdo ay leeyihiin hebel adimooho sidaas ay ku dilayaan marka taas sheekadaas markuu waxay ku tusinaysaa filimka in maxal laha ay